qaar ka mid ah qurba joogta gobolka saaxil ayaa ku soo caawiyay barakacayaasha degan amaba qaxoontiga degan degmada Mandheera ee ka tirsan gobolka saaxil qalabka lagu shubo biyaha kuwaasi oo ay baahi weyn u qabeen iyagoona u soo wakiishay Cabdo Xuseen Jaam oo ka mid ah saraakiisha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye dhammaan dadka deegaankan ee barakacayaasha ah ee halkan soo degay waxaanu saaka idin keenay 8 taangi oo kuwii biyaha lagu shubanayay oo ay idinku deeqeen anigana ay soo wakiisheen ururka qurba joogta tol wanaaje dadkaas oo ah dadka soo jeeda deegaankan sababta ay idinku deeqeen tawaangidan waxa weeyaan maadaama biyuhu ay nolosha bini'aadamka ay u yihiin mudnaanta koowaad ay u yihiin sida awgeed inkastoo aanay tawaangidu aanay farabadnayn haddana Soomaalidu waxay tiraahdaa hadba sidii loo jawaabo loo dhitiyay inay idin noqoto dhig joojin oo maanta biyaha idinku sii shubataan sida awgeed ay dadkaasi idinku keeneen waxa kaloo biyaha buuyada maanta biyaha idinku shubaysa waxa idinku deeqay xildhibaan Salaysan cali khayre oo isaguna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera buuyadina waa tan soo socota imikaana idin shubaysa xildhibaan Salaysan cali khayre waxa uu sheegay biyaha dambe ee la idin shubi doono in ay idin shubi doonaan ama se ay idinka kafaalo qaateen golaha deegaanka ee degmada Berbera oo uu hormood u yahay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Cidin oo uu qaban karo inuu qabto taasna maayirka degmada Berbera ayaa insha Allah wixii dambe biyana idinka bixin doona gudoomiyaha barakacayaasha deegaankaasi Maxamuud Cabdi Cige ayaa isaguna uga mahadnaqay deeqdani la soo gaarsiiyay anigoo ah gudoomiyaha barakaca halkan waxaan u mahadnaqaynaa gudida tol wanaaje ee noogu deeqday tawaangidii agabkii biyaha lagu shubanayay way mahadsan yihiin waan u mahadnaqaynaa ilaahay halkaa ka soo saarteen wax khayr qaba idinku bedelo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin waan u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay biyaha noogu ballan qaaday gudoomiye waanu ka sugaynaa biyaha maxay ahayd toysaa noogu ballan qaaday hawsha noogu fuli waanu ku mahadnaqaynaa ama degmada ha ahaato ama gobolka ha ahaato ama magaalo madaxda ha ahaato ama maamul sare oo kale oo ka shisheeyaba ha ahaato ama qurba joogtaba ha ahaatee annaga iminka hooy iyo bustaaba noogu sii daran waxa la cuno Allah bixiye awalba waan noolayne Abdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV deegaanka Mandheera ee ka tirsan gobolka Saaxil